كنا جرائد حكومة سابسين هاي يعني أنا كهذا النوع حسد السياسية كسوكر جبلان وعن روال كان أوهرين إن أنا أقوم هذا اليوم حكومة الدنقرن الدولة الفدرال كجروستي إن لجوا حلقي لقد القاضي لها الرجيم كويس دجاجنا جبلان قاطعي isku caana shubkii ama doorashadii xaraanteeda ka dhacday Kismaayo 25 bishan waxaan kaloo rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo salaadiinta dhaqanka Jubbaland oo ugu horeeyay Uwaas Maxamed Uwaas Xaashi oo shalay ayaguna mowqifkooda cadeeyay oo taageeray dawladda Soomaaliyeed waxaan kaloo rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo warasaabka gobolka Gedo Abdullaahi Shimbir oo asaguna garowsaday in intaan ka badan aan hoos joogo loo ahaan karin nin asaga sharci darro beesh ku joogo waxaan kaloo rabaa halkaan inaan uga hambaliyeeyo ciidamada qaranka ee gaaray deegaanada Raaskambooni Buurgaabo Kudha Kulbiyow iyo Badhaadhe oo ayaguna waajibaad qaran gudanayo waan u hambaliyeenayaa waxaan leeyahay waajibkiina Allah idin fududeeyo waxaan rabaa marka inaan halkaan muhiimadda aan ka cadeeyno mowqifkanaga dawladda Soomaaliya aan u cadeeyno inaan garab taaganahay dhammaan bulshada ku dhaqan Jubbaland ay garab taagan yihiin ay diyaar u yihiin in isbedel u ka hana qaado deegaanada Jubbaland in la suuro geliyo doorasho ay dadku u siman yihiin sidaan wada ognahay Jubbaland xilligii ay asaasmaysay waxay ku aasaasamatay qaab aan xalaal ahayn waxay ahayd system ma ogtahay dhinac ka raran wax sideedaba reer Jubbaland ay heshiis ku yihiin oon ka ahayn magaca Jubbaland in saddexdan gobol isku yiraahdo ma jiraan oo ogtihiin saadarteed waxaan diyaar u nahay inaan isbedelka kala shaqeyno dawladda Soomaaliyeed oo aan ku garab istaagno waxa jiray wax badan oo hore oo gocosha ay qabeen dadka Soomaaliyeed degan Jubbaland oo ay ka tirsanayeen dawladda oo dhacay xilliyada hadda u dambeeyay 2000 sanadka hadda u dambeeyay 2023 2019 2013 oo moogtahay intaba aan u arkaynay in daalima oo umad dhibaateynayo oo xukun jaayir ah ku haysto in mar walba taageero aad u fidineyseen haddana waxaan leenahay raad ororeed gadaal loo raaco oo hadda hadii aad diyaar u tihiin inaad ninkii jaayirka ah oo shalay aad umada dul dhigteen inaad ka dulqaadaan annaguna waxaan diyaar u nahay awalba dhibanayaal baan ahayn inaan idin kala shaqeyno sidii Jubbaland looga xoreyn lahaa jaayirkaas ku habsaday waana ku mahadsantihiin sida dhiiranaanta leh ee aad hawshaas u wajahaysaan waxaan sheegay baraalaw naxariisay wuxuu yiri xukun jilicsan iyo gus jilicsan midna waxa ma taro dawlad jilicsan uma baahna dalkan waa dal soo kabasho ku jiro dad badan oo siyaasiyiin ah oo caada qaatayaal ah oo cadow u shaqeeya ya ku dhex jiro oo la soo adeegsaday oo ajendayaal dawladda kala fulinayo dadkaas marka waxay u baahan yihiin in gacan bir ah loola tago si dalkan dawladnimadiisa cagaha loogu dhigo laakiin qof kasta oo meel soo istaago ama kaar qabiilnimo isticmaalo ama kaar deegaan isticmaalo hadii la yiraahdo lagu tixgeliyo oo dalku soo kabash ku jira markaas ma hana qaadayso dawladnimada Soomaaliya waligeed halka aan joogna waxa marka dhiirigelinaynaa inaan leeyahay cabsi gelin inaan kaar qabiil leedin isticmaalin inaan kaar dawlad goboleedka Jubbaland leedin isticmaalin reer Jubbaland waxay diyaar u yihiin isbedel waxa jiray kaar inta badan Axmed uu hadba mid la soo baxay jiro isticmaal wuxuu isticmaalayay mar kaar wuxuu isticmaalayay qabiil oo shalay markii halkan dawladda ka horeysay wuxuu lahaa qabiil baa igu soo duulayay xukunka ay qaadanay sidaas ayuu dadku abaabulayay mar wuxuu abaabulayay hadda wuxuu abaabulaya wax la yiraahdo daaroodi iyo abaabulaya wax daaroodnimo la dhaho oo shaqaysan ma jirto daarood waa kii shalay halkan Kismaayo ku xasuuqay dadkii daarood shalay waa kii farmaajo lagu ku dhaganayo moogtahay xukunka dhaafiyay sabab marka maanta daaroodnimo ugu cawdo ma jirto wuxuu dadka ka dhaadhicinaya rabo inuu ka iibiyo hawiya igu soo duulay waxa hawiya ku soo duulay ma jiraan dawladda Soomaaliyeed maanta waxa ra'iisul wasaare ka ra'iisul wasaare Xamsi oo ah moogtahay adigu aad isku dharitiin dadka ku hayo waa dadkii adiga aad isku saamiga ahaydeen oo reer Jubbaland way oo dhamaantood Jubbaland salka u dhigay oo adiga ku dhisay adiga wax ka dhigay waxa kamid ah ninkii la yiraahdo Taliya Khalid oo adiga taliyaha nabad sugidda ku ah
waxaa ka mid ah senator Fartaag oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkaadii hore waxaa ka mid ahaa wasiirka hore amniga oo adiga wax ka dhigay oo Cabdishiid Janan baa ka mid ah dadkii adiga wax ka dhigay oo Jubbaland dhistay oo adiga ku dhisay way dadka hadda shaqada wada waxaan marka rajaynaynaa